waqtigii xoolaha waddanka la dhacayo way dhamaatay waqtigii la isku xadgudbaayo way dhamaatay waqtigii albaabada laydinka xiran jiray way dhamaatay waqtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka waxaan idin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin kara dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in bilaaw cusub uu bilowday waxaan idin ballan qaadayaa marka aad qorraxda fariisataan inaan idin la fariisan marka aad faraxdaan inaan idin la faraxno marka aad murugootaan inaan idin la murugoon wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahay inaan idin dhageysano albaabadana aan idin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibku naga saari doona hadii ilaahay raado ilaahay qalbigeena isu soo dhaweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeena ha sugo ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyay sanadaad badan ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahay rabbi oo xaq nagu dub ilaahay rabbi isku soo dhaweey ilaahay rabbi oo qabyaaladana baabiisa naga qabo ilaahay rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayno noogu bedelina anagu qalbigeena anagu wax iska raadino ilaahay shacabka Soomaaliyeed isku soo dhaweey ilaahay sharafteena noo soo celi ilaahay karaamadeena noo soo celi ilaahay culummadeena barakay ilaahay dhalinyaradeena barakay ilaahay dumarkeena barakay ilaahay madaxdeena anugu horeeyo xaq waafaji ilaahay xaqna waafaji ilaahay xaqna waafaji ilaahay idin barakay kulli